koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu u yahay BG daqiiqad kasta oo idin soo martana waa waqti idin dhaafay oo aan idin soo noqonayn laakiin intooda badan ma aanay suurtagelin in la aqoonsado maadaama jirkoodu googo'ay wajiyadoodana ay gudbeen oo waxaa mar kale lagu celiyo 10:43 daqiiqo waxaa sidoo kale mar kale uu dhacay howlgalkaasi xalay 12 AM saqda dhexe waxaana uu ka dhacay howlgalkaas deegaan u jira 10 kilomitir masaajid cali guduud oo lagu magacaabo doolile ama loo yaqaano burcolow kaasoo dhanka galbeed ka xiga magaalada masaajid cali guduud waxaa goobtaas weerarka ku sugnaa oo isku diyaarinayay kooxda ay khawaarijta ku magacaabaan jabhadda oo u diyaar garoobaysa weerar ay ku qaadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee mujaahidiinta ah ee maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee al-shabaab halka maaragtay kula dagaalamayay kooxda halka joogtay waxaa hogaaminaya horjooga lagu magacaabo Muscab Cabdulla Sanay iyo horjoogayaal kale oo ka tirsan kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab weerarada xala dhacay midka koowaad aan hadda idin sheegay midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu uu yahay BG oo ay saarayd saanad ciidan iyo rasaas oo kooxda argagixisada ah ee khawaarijta al-shabaab ay doonayeen inay dagaalka u isticmaalaan halkaas ayaa lagu gubay gaarigaas iyo wixii saaraa weerarka labaad oo daqiiqada kadib isla goobtaas ka dhacay waxaa lagu beegsaday gaari kale oo isna nuuciisu ahaa BG oo ay saarayeen walxaq qarxa oo tankoodu aad u weynaa qarxaas oo burburiyey dhul gaaraya 1 kilomitir oo isku wareeg ah wuxuuna qaraxaas laayay oo ku dhammaaday maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii goobtaas joogay ee dagaalka isku diyaarinayay inta la aqoonsada meydadkooda waa 9 ka tirsan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka oo halkaas ku dhintay laakiin intooda badan ma aanay suurtagelin in la aqoonsado maadaama jirkoodu googo'ay wajiyadoodana ay gubteen oo ay adkayd in la aqoonsado weerarka afraad waxaa lagu beegsaday oo ah mid ka dhacay xalay saqda dhexe 12 maleeshiyadii intii ka badbaaday labadaas weerar oo hore oo iyagoo is aruursanaya oo jooga meel aan ka fogeyn goobtaas mar kale halkaas iyagana muxuu ahaa tallaabo looga qaaday dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in tirada dhimashada khawaarijta ee weerarada aan kor idinku sheegay ay kor u dhaafayso 100 welina ma jira tiro koob rasmi ah maadaama meydadkooda iyaga laftigooda ay qaar weli ururinayaan qaarna dadka socotada iyo dadka dhulka ku nool ay ku arkayaan dhulka hawdka ah iyo meelaha ay howlgalladu ka dhaceen waxaana saaka deegaanka lagu magacaabo Al-Kawthar oo u dhow magaalada Aadan Yabaal ay geeyeen 33 ka mid meydadkoodii khawaarijtii iyo horjoogayaashii halkaas looga laayay howlgalladan waxaa suurtageliyey qorshe isku dubaridan oo ay hogaaminaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo kaashanaysa saaxiibadeena caalamiga ah oo aan uga mahad celinayno doorkooda iyo garab istaagooda ay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed in ay ka nabad galaan cadawga khawaarijta ah kana adkaadaan dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibadeeda caalamiga ah waxaa ka go'an sii wadista dagaalka lagu ciribtirayo khawaarijta oo ka socda aaga kala duwan oo uu ka mid yahay midkan hadda aan idin faahfaahiyey iyo kuwa kale oo ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo meelo kale oo ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rabnaa halkan inaan fariin uga dirno dhalinyarada Soomaaliyeed ee argagixisadu ay mareen habaabiyeen ee aan ku dhiman ama aan ku dhaawacmin howlgallada socda waxaan leenahay kuwa dhintay ee khawaarijta ah fursaddii ay shalay ku toobad keeni kareen maanta ma haystaan fursaddii ay ku soo baxsan kareen oo shalay haysteenna maanta ma haystaan kuwiina haysta fursadda aad ku toobad keeni kartaan ha ku dhimanina safka shaydaaniga ah ee khawaarijnimada ee ahlunaarnimada ee ka soo baxa naftiina waxyeelaynina ee ka soo hara idinku ma tihiin kuwa dembiyada galay ee waaweyn loo socdo ka soo wareega hortooda meesha ay saaxiibadiin mareen inaad martaan iyo inaad naftiinna iyo aakhiradiinna badbaadsataan labada ayaad kala dooranaysaan daqiiqad kasta oo idin soo martana waa waqti idin dhaafay oo aan idinku soo noqonaynin sidaas daraaddeed waxaan markasta xusuusinaynaa dhiiggiinna iyo dhimashadiinna ahmiyad nooma aha noloshiinna iyo nabadqabkiinna ayaa ahmiyad noo ah ka soo hara kuwa u taagan inay idinka idin dilaan iyo inay waalidkiin dilaan dadkiinna u soo noqda waxa idinka khaldamay ayaa laydiin toosinayaa
akhlaaqda ayaa laydin hagaajinayaa kadibna dadkiinna ayaa dib ula midoobaysaan sida kuwa idinka horreeyey oo kaleeto ay sameeyeen aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu